وعمر تحت التراب عيد هوستيدو ku jira la soo maanta inaga ka war haday meherad fadhido way dalacaysaa waxani waa diin hadaad iska daysana waa ku banaantahay wajigaagu ku furnaado hadaad xidhatana way ku banaantahay عائشة رضي الله تعالى عنها waxay ahayd akmalu nisaa'i diinan dumarkii xilliga joogay qofkii diinkeedu ugu dhamayska tirnaa xagga aqoonta iyo cilmiga xagga akhlaaqda xagga aadaabta iyo xagga xishoodka hal tusaalaan idin siinaya rasuulku markuu geeriyooday aqalkii Caaisha ay deganeed baa lagu aasay أبو بكر باقيريودي أقل كلفتيسي ورسولك دعدي ساعة مدح حق رسولك حكتال له آسي وحيتري عائشة انتي هلكا ورسولك كؤاسنا أنيقو أن حجاب حدنين أيان قولك قيلي جلو كسو بحجري أبو بكر آبها يمركو دنتي إسنا ميت كيسي لغوصو آسي وإسكا قيلي جلو واسو بحجري بالنتو عمر دنتي إلا الدلاء لو آسي ماشا maalintaas ay igu dambeysay anigu aan xijaab xidhnayn halka ay ku aasan yihiin inaan galo hada wada dhinto mawta Umar baa soo galay xabaashi oo saddexeeyay Umarna Aisha ajnabi uu ka ahaa qof xabaal ku jiray sida uga xijaabanaysa qof nool oo soconaya maxad malaynaysa Aisha radhiyallahu yada ka waranaysa Umar maantii la soo galiyay ayaa igu dambeysay anigu shamlad yar hagoogan inaan qolka galo xijaabkayga dhan baan xidhan jiray markaasaan qolka gali jiray وعمر تحت التراب عيد هوستيدو ku jira la soo maanta inaga ka war xalaga habluhu markay ka soo baxayaan aqalada tan niqaabka xidhani iyadoo niqaabku u dalacay soo baxaysaayo xogaa markay suuqa socoto ay iska soo deysanaysaa hadhow haday meherad fadhido way dalacaysaa waxani waa diin hadaad iska daysana waa ku banaantahay wajigaagu ku furnaado hadaad xidhatana way ku banaantahay laakiin waxa u dhaxeeyaan la ogolay kolna saar kolna ka qaad de sax maaha waa inaad meel u baydha adigu meel isugu biyasho si aad dambiga uga badbaado waqtigan fitnadu jirtana hablaha yar waxa wacan islaamaha waaweyn mooyaane inay wajigeeda iska asturataa wacan qofka meesha laga beega quruxdiisu